ismaqal iyo daawasho wanaagsan meel walbo aad joogtaan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka waa 26 bisha shanaad sanadka 2020 qodobada wararka aad ku daawan doontaanna waxaa kamid ah faahfaahin iyo wararkii ugu dambeeyay oo laga helay diyaarad lagu rasaasay gudaha dalka Soomaaliya Imaaraadka Carabta oo si qarsoodi ah u curyaamiyay qorshihii Sacuudi Arabiya oo kala ahaa laba wadan maxkamadda sare ee Puntland oo u muuqatay inay la safatay madaxweyne Siciid Dani iyo dhaarinta wasiiradii halkaasi lagu dhaariyay dowladda federaalka ee Soomaaliya oo mar kale ka farxisay muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku xayirnaa dalka dibadiisa maxay tahay dacwadii ay qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ay ka gudbiyeen wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya iyo dagaalka nooca cusub ah ee u dhaxeeya dowladaha Iiraan iyo Israa'iil oo ka bilowday bariga dhexe qodobadaas iyo qodobo kale oo dhowr ah ayaad ku daawan doontaan wararkeena xilligan markale isu soo noqod wanaagsan waa 26 bisha shanaad sanadka 2020 haddii ay tahay markii kugu horeyso aad soo booqato channelka fadlan subscribe saaro si aad u hesho macluumaadkii ugu dambeeyay halkan aan kugula wadaagno kadib aragtidaada qodobada ku soo jiita adiga oo ka doodi karaya wararka ugu waaweyn ee gudaha dalkeena Soomaaliya gaar ahaan diyaaradda lagu rasaasay gudaha dalka Soomaaliya la wadaag saaxiibadaada kuma hasanid inaad ka mid tahay saaxiibada halkan ku xiran fadlan like saar muuqaalka si aan u ogaano heerka ka helitaanka ma hasanid markana waxaan eegaynaa faahfaahinada wararka ugu waaweyn ee gudaha dalka iyo dibaddaba wararka ka imaanaya gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan gobolka Baya ayaa sheegaya in diyaarad sahay gargaar lagu rasaasay deegaanka Qansax Dheere xilli ay doonaysay inay halkaasi ku degto sida ay sheegeen ila wareede kala duwan diyaaradda ayaa waxa ku dhacday rasaas fudud waxaana la sheegay shilkaani inuu dhacay wax yar ka hor 12 duhurnimo wararka waxa intaasi ay ku dareeyaan in diyaaradda ay markii dambe ay ka soo kacday Qansax Dheere isla markaana ay ku soo laabatay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya wararkan helayna ayaa waxay sheegayaan in diyaaradda ay degmada Qansax Dheere ay geysay gargaarka nafaqada leh oo loo waday dumar iyo caruur halkaasi ku nool ilaa hadda ma cadda sida ay wax u dhaceen mana jirto cid wax ku noqotay diyaaradda inkastoo oogada diyaaradda sare ay rasaas ay ka muuqatay mid ka mid ah saraakiisha maamulka Koonfur Galbeed ayaa warbaahinta u sheegay in loo malaynayo in al-shabaab rasaas ay ku fureen diyaaraddaasi bishan horaanteedii ayaa diyaaradda ku dhacday degmada Bardaale kaas oo ay ku dhinteen ilaa 6 ruux mas'uuliyiinta maamulkana waxay sheegeen in ciidamada dowladda Itoobiya ay rasaasayeen diyaaradda waxaana ilaa haatan socdo baaritaanka diyaaraddaasi oo laga lahaa kana diiwaan gashan ee dalka Kenya xiisada diyaaraddaasi ka dhalatay ayaana laga dareemayay warbaahinta muddooyinkii ugu dambeeyay waxyaabaha ka soo kordha macluumaadyadeena kale ayaan ku eegi doonaa balse markaan aan eegno Imaaraadka Carabta iyo sida uu u curyaamiyay qorshooyin Sacuudiga uu kala lahaa laba dal dadaalada dowladda Sacuudi Arabiya ay ku doonaysay in ay saameyn ugu yeelato wadamada bariga dhexe isla markaana ay noqoto hogaamiyaha Carabta ee dunida waxa curyaamiyay Imaaraadka Carabta sida qabiir arrimaha bariga dhexe ku xeel dheer oo u sheegay telefishinka TRT oo laga leeyahay dalka Turkiga tusaale cad waa dagaalka Liibiya halkaas oo Sacuudiga si toos ah u taageerayay ololihii dhiigga uu ku daatay ee General Khalifa Haftar oo sanadkii la soo dhaafay uu ku doonayay inuu ku qabsado magaalada caasimadda ee Tripoli si kastaba ahaatee kasoo dhaqaalaha ee xukuumadda Riyaad ay ku taageertay General Khalifa Haftar Imaaraadka Carabta ayaa waxaa lagu waramayaa inuu kala wareegay ninka awoodda ku leh dalka Liibiya sida ay khubaradu ay sheegayaan Sacuudiga waxa uu si qarsoon uga careysan yahay ismuujinta iyo go'aan qaadashada kaliga ah ee sii kordhaysay Imaaraadka Carabta gaar ahaan arrinta Yemen sidaas ayuu yiri qabiirkan oo la hadlay telefishinka TRT sidaan oo kale dowladda Masar ayaa waxay ka careysneed go'aano gaar ahaaneed oo boqortooyada Imaaraadka Carabta ay ka qaadatay dagaalada Liibiya ka soconaya iyada oo aan lala tashan dowladda Masar Sacuudi Arabiya Imaaraadka iyo xulafadooda waxay dagaal military ku qaadeen gudaha dalka Yemen sanadkii 2015 iyaga oo isku dayay inay dib u soo celiyaan xukuumaddii madaxweyne Cabdirabbu Mansuur Haadi isla markaana ay burburiyaan dhaqdhaqaaqa Xuutiyiinta si kastaba haatee 5 sano oo dagaalka uu socday boqortooyada Sacuudiga ma aysan gaarin wax hadafkeedii kamid ah Imaaraadka Carabtuna waxa uu si tartiib uga furanaya xukuumadda Riyaad Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga markii horeba waxay ku loolamayeen gacanta sare ee koonfurta dalka Yemen halkaas oo Imaaraadka ku taageeraya dhaqdhaqaaqa gooni u goosadka ee doonaya in koonfurta ay ka madax banaanaato inteeda kale Yemen bishii Abriil 25keedii golaha xaaladda kala guurka ee koonfureed ayaa maamul gooni isu taaga ku dhawaaqay waxaana kaga dhawaaqeen koonfurta dalka Yemen waxaana caasimadda ka dhigteen magaalada Cadan tallaabadaasi waxay kicisay loolan siyaasadeed oo soo wajahay taageerada Sacuudiga waxaana ay dhalisay caqabad weyn oo dhinaca diblomaasiyadda oo Sacuudiga qabsatay
sacuudiga oo la halgamaya awoodda xadidan ee militariga iyo cadaadiska dhaqaale ee ka dhashay dagaalka ayaa wadahadallo qarsoodi ah la furay xuutiyiinta bilihii lasoo dhaafay, taasi oo muujinaysa qirasho ah in dagaalka looga adkaaday. duqeymaha dhanka cirka ee sacuudiga oo ka geystay gudaha dalka yemen waxay sababeen waxay qaramada midoobay ku tilmaamtay xasarad bini-aadanimo tii ugu xumeyd ee adduunka soo martay, waxaana duqeyntaasi ku dhintay 100,000 oo qof. arrimaha gudaha haddii aan usoo laabanana, wasiiradii muranka ka dhexdheliyay madaxweynaha puntland iyo ku-xigeenkiisa ayaa ka qaybgalay xafladda dhaarinta xubnaha golaha wasiirada ee dhowaan uu magacaabay madaxweyne siciid deni, waxaanay ahaayeen kuwo ay isku qabteen isaga iyo ku-xigeenkiisa oo warbaahinta isku marinaya hadallo kala gedisan oo arintaasi la xiriirta. madaxweynaha puntland siciid cabdilaahi deni oo ka qaybgalay munaasabada dhaarinta ayaa sheegay in xubnahan in looga baahan yahay inay gutaan waajibaadka shaqo ee sugaya, islamarkaana ay tahay inay si degdeg ay xilalkooda ula wareegaan oo waqti ay geliyaan sidii loo meermarin lahaa dhammaanba waajibaadka saaran. kusimaha gudoomiyaha maxkamadda sare ee puntland ayaa dhaariyay xubnahan, waxaana maxkamadda sare ay ka mid tahay meelaha la tuhmaya inay dhexdhexaad ay ka noqon lahayd khilaafka labada mas-uul ee ugu sarreeya hay-adda fulinta, inkastoo iminka ay muuqato inay dhinacii la safatay. madaxweyne ku-xigeenka puntland ayaa diiday magacaabista madaxweyne deni ee golaha wasiirada, waxaana uu sheegay in lagu magacaabay sifo aan sharci ahayn, waxaana la wareegidii xilalkooda la filayaa inay ka bilaabato maalinimada birita iyo maantaba magaalooyinka waaweyn ee puntland, gaar ahaan magaalada garowe, iyada oo si weyn la isugu hayo ishana lagu hayo khilaafka u dhexeeya labada mas-uul. ma jirta waawaan hadda socota marka laga reebo dadaal guuldareysta oo ku wajahnaa sidii xiisada loo xalin lahaa, laakiinna ay fashilisay wareegtada madaxweynaha puntland uu ku magacaabay golaha wasiirada, kuna xejiyeen hadaladii saxaafadda isdhaafsadeen labada mas-uul. macluumaadyo kale ayaa inoo soo socda, balse markaan iyadoo maalmihii ugu dambeeyay dowladda soomaaliya ay dalkay kusoo celinaysa muwaadiniin tiro badan oo soomaaliyeed oo ku xeyrnaa dalal badan oo caalamka ah, ayaa safaaradda soomaaliya ee dalka kenya waxay wadaa qabanqaabada wejiga labaad ee qorshaha muwaadiniin badan loogu soo celinayo gudaha dalka soomaaliya, kuwaasoo muddo badan ku xeyrnaa gudaha dalka kenya. dowladda soomaaliya ayaa sababa la xiriira cudurka covid-19 dartii u joojisay duulimaadyadii caalamiga iyo kuwa gudaha marka laga reebo kuwa gargaarka sida ee loogu talagalay in laga hortago faafitaanka cudurka coronavirus. safaaradda soomaaliya ee magaalada nairobi ayaa shaacisay dadka doonaya in soomaaliya kusoo laabtaan ay la xiriiraan xafiiska shirkadda daalo si ay isaga diiwaan geliyaan dib ugu soo celinta dalkooda hooyo. soomaaliya ayaa dhowaan dalkeeda kusoo celisay muwaadiniin badan, iyadoo dalka soomaaliyana laga dhoofiyay muwaadiniin haysta baasaboorada dalal kale oo ajaanib ah. markana maxay ahayd dacwadii ay qaar ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed ay ka gudbiyeen wakiilka midooda afrika? xildhibaan cabdirashiid xidig oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka, sidoo kalena ka mid ah xubnihii isbedel doonka ee jubbaland, ayaa sheegay inay furi doonaan gaaldacwadeed ka dhana wakiilka midooda afrika u qaabilsan soomaaliya ambasador francisco madeira. qoraal ku qornaa luqadda ingiriiska uu soo saaray xildhibaan xidig ayaa waxa uu ku eedeeyey ambasador francisco madeira in shirkii golaha ammaanka ee dhowaan u qabsoomay uu ugu gafay mid ka mid a beelaha soomaaliya, sida uu sheegay cabdirashiid xidig. wakiilka midooda afrika u qaabilsan soomaaliya oo dhowaan ka hadlaya shirka golaha ammaanka ayaa sheegay in madaxweynaha jubbaland oo heshiis uu la gaaray xubno ka mid a mucaaradka oo kasoo jeeda beeshiisa, muhiimna ay tahay in beelaha kale lagu heshiisiiyo, qaybna ay ka noqdaan heshiiska ka dhacay deegaanada jubbaland. xildhibaan cabdirashiid xidig waxa uu sheegay in ambasador francisco madeira uu lumiyo kalsoonidii iyo dhexdhexaadnimadii midooda afrika, islamarkaana wax laga xishooda ay tahay in diblomaasiyiinta howlgalka midooda afrika ay faragelin ay ku sameeyaan siyaasadda qabiilooyinka soomaaliyeed, isaga oo adeegsanaya ereyga ogaadeen park bayaankii qaramada midoobay. laga soo bilaabo sanadka 1991 markii dagaalada sokeeye ee Soomaaliya ay qarxeen, diblomaasi ajnabi ah weligiis magac qabiil kuma uusan isticmaalin magacyo ka dhana qabiilooyinka kale, taasi oo Madeira uu sameeyay. hadalkaasi ayaana nasiib darro ah, waxaana uu ku dhacay meel hoose oo saameyn ku yeeshay Soomaali badan, ayuu yiri xildhibaan cabdirashiid xidig. ugu dambeyntii wuxuu ugu baaqay baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, qaramada midoobay iyo sidoo kale midowga Afrika inay si degdeg ah shaqada loogu eriyo Francisco Madeira. wararka ugu waaweyn caalamkana haddii aan eegnana, dagaal nooc cusub ah oo u dhexeeya Iiraan iyo Israa'iil ayaa waxa uu ka socdaa bariga dhexe. website laga jabsaday Israa'iil iyo weerar internet ah oo la soo wariyay inay Iiraan ay wado iyo dagaalka dhanka Twitter-ka ah ee u dhexeeya hogaankooda. cadaawada u dhexeysa labada dal ayaa waxay u muuqanaysaa inay iminkay ka holceyso dhanka online-ka, waana xiisad cusub oo labada dowladood u dhexeysa. falaarihii ugu dambeeyay isweydaarsadeen Israa'iil iyo Iiraan waxa ay ku soo beegmeen 20 sano guuradii ka soo wareegatay markii ciidanka Israa'iil ay ka baxeen koonfurta Lubnaan, taasoo ay ku qasbeen maleeshiyaadkii Iiraan ee taageerada ay siinaysa ee Xisbullah, iyadoo Israa'iil ay u
dabaaldegaysa markii ay qabsatay qaybta bari ee magaalada barakaysan ee Qudus sanadkii 1967. Iiraan waxa ay xusaysaa maalintaasi, waxaanay ku xusaysaa Falastiiniyiinta iyo sidoo kale isku xirnaanta muslimiinta iyo sidoo kale yuhuud nacaybka. waan taageeri doonaa waana caawin doonaa maamul kasta iyo koox kasta oo la dagaalamaya rajiimka Yahuuda. Sidaas waxaa Twitterka ku qoray hogaamiyaha Iiraan Ayatollah Ali Khamenei. dagaalka cusub ee hadda u dhexeeya labada dowladood oo dhanka internetka ku saleysan ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay aad u soo shaac baxayay, iyada oo dowladda Iiraan marar badan lagu eedeeyay in ay haakaro ama burcad dhanka internetka ah ay jabsadeen website